sanka la durto maxay ka qabtaa shariicadu dhigii baa la isku haystaa sanbaa idinku hadlaysa aymada qaar kamida waxay ka doodayaan dhagaha duridooda waa dumarka oo waxay leeyihiin dahabkii ay gabdhaha saxaabadu iyo dumarka saxaabadu xidhnaan jireen dhagtu ma duuleelin bay leeyihiin baal ku dhagaya buu ahaa bay leeyihiin saas daradeed qaar baa waxay leeyihiin dhagtoo la duleeliyo waa nooc tashwiih waa taqyiir khalqi illah abuurkii ilaahay oo la bedelay waa laakiin badankood waxay qabaan in dhagta la duleelin karo haddiiba dhagtii laga doodsan yahay sanka warkiisa meel iska dhig marka sanku khaasatan wejigu ku yaalaa wejiguna waa meeshii ibni aadamka ugu sharaf badan waa marka in la dulduleeliyo la tashwiihiyo ma fiicna nin dhalinyaro oo zina ka baqaya qaabab kale biyaha ma isaga keeni karaa buu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ha soomo يا معشر الشباب حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاع صوم كبتصو إن شاء الله تعالى إسقى شهوة هذا تشبنه وكل فاني يعني وحو بربرين يا لأن وحو أنت بدن درين كوحو كيما nafaqada jidhka uu qaadanayo haddii nafaqadii jidhka laga gooyo oo la cuno qabateeyo dareenkii shahwada ayaa yaraanaya inta kaliya ma aha ajirna waa kugu jira sooma marka ajir iyo daawo isku qaado sooma fiicna xaaraanna kaga badbaad طيب waxaa jira fataawa ay leeyihiin Abdullah ibn Abbas يا عبد الله بن عمر لبضب كأصحي وصحيحة وأيليهن حل كان نبي بحي وصح لكن روحه هذا سوق وتهدو إلى هذا الوامد زينو أما بيهون اسكاكيان وقعان اسكاكيان مركا وحي إليهن الاستمناء أهون مركاسي لو الشرب على كلا دورانه لو الشر كلا فضود مركا صوما إلا هذا لا سو استاكت marka wax weeyaan way kala fududiyeen صوما لكن حلق وكان النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء waxay sheegan dhaqaatiirtu wana wax jira runtii baxthi aan maalin akhrinayo in dhakhtar uu qoray ilaa 8 cudur baa laga qaadaa bay dhaheen ilaa 8 cudur biyaha gacanta la isee keenay si caadi aan ku iimaanayna la soo saarayo 8 cudur oo qaar kood halis yihiin baa laga qaadaa shariicadu shay haday diido sideedaba xikmad baa ku jirta oo shay hadii la diido dhibka ku jira ayaa badan ama garo ama garan salaada taraawixda laba ragcadood oo kasta marka la xidhanayo ma lala iimaanaya ducada oo iftitaaxa lama iimaan kartid sida asalka in la yimaado waaye laakiin hadda muxuu ahaayay aimadu sida dadku ku tujiyaan way ba adag tahay laana imaamku markii faatixadu bilaabay hadii imaamkaagu faatixada akhrinayana wax faatixada ka badan haduu quraan akhrinayo quraankiisana aad maqlayso wax faatixada ka badan ma akhrin kartid la iftitaax wala mid hore ila wala wax ka dambeeytoona faatixada wax ka horeeyo wax ka dambeeytoona lama akhrin karo waxayna yaani ku fadhidaa wada quri'a alqur'aanu fastami'u lahu istima' marka dhageysi baad galaysa faatixadaas oo iyadana hadal badan ku jiro baa laga soo reebaya laakiin wixii kale ma asalkiisu waa inuu san banaanay